extraordinary reason. maamulayaasha college-ka ayaan kusoo dhaweynayaa sida aragta telefishinkan cusub ee Royal horta aad baan u salaamayaa Saciid iyo bahda TV-ga Royal waan soo dhaweynaynaa TV-ga cusub ee kusoo kordhay saxaafadda Soomaalida baahi weyn oo loo qabay ayaan siinahay saxaafadda Soomaalida waxaan leenahay TV-ga Royal kusoo dhawow waan aad baan u soo dhaweynaynaa waayahay Maxamed bal maxaabad nagula talin lahayd noolan lahayd waxyaabahaas xoogga saara والله horta xafidaya TV-ga Royal inuu haysto khibradan haysano mid la mid ah waayo TV-yada Soomaalida iminka jira oo dhan intay jireen waxyaabaha dhaliilaha ay leeyihiin iyo waxyaabo ay ku wanaagsan yihiin saan u aragnay bayna arkeen waxaan isleeyahay way ka faa'iideysanayaan khaladaadka iyo meelaha ku liitaan TV-yaas in iyagu ka ku saxnaadaan waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa TV-gu inuu ahaado mid dhexdhexaad ah wararkana si xaqiiqo ku saleysan oo hubaal oo TV-ya waxaan kaloo aad iyo aad TV-gu soo dhaweynayno mid inta badan ka taliya dhinaca horumarka iyo xagga wanaagsan oo aan tabin wararka xun wax duminaya waxaan rajaynayaa TV-gu inuu ka qayb qaato inuu aad iyo aad kor ugu soo qaado in bulshadu ay ogaato wax badan oo wanaagsan oo sax ah inuu TV-gu xoogga saaro dhinaca horumarka iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxaan TV-gu kaloo kula talinayaa inuu noqdo TV barnaamijyo cilmiyeed oo bulshada wax u soo kordhinaya soo daaya waad aragtay TV-yada caalamka ayaa adduunka joogta waliba waxaan TV-gu u soo jeedinayaa gobolka Sanaag waa fursad taariikh badan baa ku aasan oo halkii laga soo jeeday Soomaalidu markay ku dhalatay inay taariikhda soo saaraan cilmi baaritaan ka sameeyaan ay dunida u soo shaac saaraan baan insha Allah u rajaynayaa inuu lagu guuldareysto insha Allah waayahay Maxamed maxaad aad salan lahayd ayuu telefishinkan ku soo kordhinayaa saxaafadda guud ahaan ee Soomaalida والله waxaan arkaa TV-ga insha Allah waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo kordhin doono walow TV-ga cusub yahay oo iminka saxaafadda ku soo biiray laakiin waxaan isleeyahay TV marka iyagu abuurayeen TV-ga qolada ay samaysay ka dambeysay maskaxda TV-ga ka dambeysay kulliba waxay arkeen baahi jirta marka waxaan rajaynayaa baahida ay u abuureen inay ka jawaabi doonaan insha Allah inay si positive uga jawaabaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu mid ka mid ah maamulayaasha gobolka in ay deeladkeed leeyahay ay cusub ku yihiin laakiin se TV-gan in wariye fiican oo gobolka uu ahaado oo si fiican uga warrama goobaha gobolka meel kasta oo wax ka jiraan wax laga qabanayaan la socda ayaa runtii deeladkeed leeyahay dhiirigelinaya taa waxaan kaloo deeladkeed leeyahay sheegaya kolley TV-yada waxa muddo qaar baa jira fundamentalism in xajirnimo ay ku yara jirto laakiin se kan waxaan runtii aad u joognaa noqon doono TV dhexdhexaada oo ay dadku siman yihiin ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama dalka intiisa kale ha noqoto mid dadka dilaya dhexdhexaada oo dadka baahintuna ma hadda madax banaan tahay waxa fiican in dhexdhexaad ahaato waayo Maxamed maxaad loolan lahayd xoogga saara arrintaas bulshada had iyo jeer u gudbiya waxaan oran lahaa xoogga saara dadka leeyahay waxbarashada oo dadku marka maanta ay tahay caafimaadka dadka maanta marka ay tahay runtii aad bay guur yihiin dhinaca waxbarashada oo waxaad moodaa deeladka leeyahay boqolkiiba in helo 20 dadka inta wax garanaysa inta kale ay yihiin ignorant marka waxaan lahaa waxbarashada soo caafimaadka kale isna waxa weeye caafimaadkuna waxa waxyaabaha bulshadu la dabar u ah ay kamid tahay wacyigelinta waxyaabahaas oo dhan deeladka leeyahay aad soo deysaan oo dadka ku encourage karaysaan maadaama aad tihiin saxaafadii ayaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xarrago oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag waa taydaalada markii la waxay eegayna xagga ururada bulshada iyo haweenka halkan waxa jira jooga dawlad xogsada oo ka mid ah ururada bulshada haweenka dawlad soo aragta telefishinkan cusub ee Royal Soomaaliya ku soo kordhay saxaafadda Soomaalida waxaan u arkaa telefishin fiican inuu yahay kuwa jooga ee hadda telefishinka keenayna waa mahadsan yihiin TV-gan cusub ee Royal Soomaaliya TV sidee u aragtaa waxaan u arkaa TV-gan inuu TV cusub yahay oo kuwa hore ka bedelan oo maxay ahayd dakacaan ah oo ordaya
dheeraynayana waxna u qabanaya dadka kana duubaya wixii wanaagsan oo dhan maxay haytaa laakiin waxaan u baahanahay in wax nala qabto waayo xawaadna oran lahayd naguma talin lahayd aad oran lahayd xoogga saara wacyigelinta bulshada iyo maxay ahaydtay horumarinta reer miyiga ilaa iyo maxay ahaydtay waxa laale wixii tabaalaysan oo de jooga meesha oo u baahan dawladyaal sidaad muuqata hadda halka waxaa la jooga Xuseen Cusmaan oo ka mid ah saraakiisha isduubayaasha TV-ga maanta aad iyo aad u shaqeynaya aad loo fiirsan haatan waxaa la taagan mid ka mid ah madax dhaqameedka ku dhaqan gobolka Sanaag xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka gobolka Sanaag xildhibaan sidee u aragtaa telefishinkan cusub ee Hooyada Soomaali waxaan u arkaa wax wanaagsan oo dadka ku soo kordhay way fiican tahay in saxaafaddu badato ee xor ahaato inuu wax badan tari doonana waa rajaynaynaa waana ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa weliba talooyinka aan siinayna waxaa ka mid ah inuu ahaado TV dhexdhexaad ah oo ka shaqeeya danaha ummadda warka uu sheegayana uu ahaado war sugan oo aan dadka nabadgelyada iyo khalkhal ku ridaynin weliba waxaan jecelahay arrimaha bulshada inuu xoogga saaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haatan waxaa la jooga Cumar Cali Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee gobolka Sanaag Cumar sidee u aragtaa telefishinkan cusub bismillaahi raxmaani raxiim hambaliyo horta TV-gan Royal Somali TV wana hambaliyanayaa runtii waxaan ahay daawadayaasha iminka intuu furaa aad ula socday TV-gan wuxuu ku aasaasmay si fiican marka waxaan leeyahay TV-gan anu talooyinkan soo jeedinaya waxaa ka mid ah inuu horta dhalinyarada iyo barnaamijyada dhalinyarada uu xoogga saaro iyo aqoonta horumarinta bulshada inuu xoogga saaro TV-gan waxaa oran lahaa waxaad ka dheeraataa inaad dhinac saartid waxyaabaha ka jira waddanka inaad dhexdhexaad ahaatid si kalsoonida dadku ay kugu kalsoonaadaan taageeradaaduna aad u badato marka waxaan leeyahay Royal TV waxaad tihiin TV international caalami ah waxaad kaloo ku darsataan barnaamijyada diiniga maadaama TV-gan yahay TV international oo Yurub iyo meel walba laga daawanayo waxaan leeyahay dadkeena reer Yurub amba qaaradaha inaga jira si ay ula socdaan barnaamijyada diiniga waxaad aad u eegtaan barnaamijyada diiniga wuxuu ku soo kordhinayaa way kula tahay telefishinkan telefishinada saxaafadda Soomaalida wuxuu ku soo kordhinaya horumar iyo hanaqaad fiican waayo barnaamijka maanta waxaan joognaa jaamacaddii horeysay ee laga asaasayo gobolka Sanaag amba Ceergaabo waa horumar runtii laga daawan karo diasporada caalamka joogta ay aad ugu farxi doonto waxaana leeyahay fariin aad uga dirayo waa inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada noocan oo kale ah waatay daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah aynu ku eegaynay aragtida dadweynaha ku nool magaalada Ceergaabo qaybaheeda kala duwan sida siyaasiyiinta dhalinyarada iyo ururada haweenka wax barnaamijkan la socodsiinayay anigoo Saciid Axmed Wareyse intaynu barnaamijka kala isugu meel doono wassalaamu calaykum waraxmatullahi